fiirso oo ka faa'iideyso faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare faaliyaha qaranka fikraduhu soo bandhigayo waa midan wax fogeynin waa midan wax ficleyn waa falaaqayntii fahankeena farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare fariiso oo fiirso faafahinada faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare abwaano aad u fac weyn iyo jilaayaal firfircoon fikir ay isku dareen fiid kastoo sabti ah universal ka fiirso faaliyaha qaranka fikirkaaga waa u muhiim faaliyaha qaranka بسم الله الرحمن الرحيم داوديال إفيرسديال إيجيديال إديموديال إيغيال إدوكتيال أبيال هويال أبايال أبويال أبتيال آيال أديريال إيديال أوويال أمورديس أييال أبشحنيال مسؤولين يال ملوخيال جيران يال مدحوين يال علماء الدين يال جناع ستيال صرف ليال فونديال فريام يال أصحاب يال دلك جوجيال دبد جوجيال دقم جوجيال طول جوجيال إلا جيل جريال وسلامتين كسر وهذا برنامج كينا فاليها هي وخرنكا وكفرها فول الكيني يو فمديني فورمادا اوتو فردسيني وقتيغانو كلوا ان شاء الله انيغا سو فديسها وقتيغانو كلواني سو فديسها فاليهان سو فردها فيرسديال very nice يال أنفره وحي بفولو واتسو فسحا كسو دوادا خضبدا فاليها قرنكا او ان ادين دولمرو خضبكا كوات is أفهم لما لغو جراء سيق إلهي باري واي isfahan بمقارينيو isfahan أفهم سيسوليري يا فيري اسفهم فيري اسفهم لا لغو جراء اسفهم لحمرتي وزارة مالية اي قناعستة خاتكا أيا وحا وزارة أي جوجيسي قناعسيقي خاتكا وزارة وحي بجوجيسي قناعسيقي خاتكا قناعستدينا ايري بوركا مقدشو إناي ugoyeen ayay baqaadkii hee u wareejiyeen maamulka Hirshabelle is-afhan waa markii ay dhaxmartay wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatadii qaadka ka ganacsiyeysay ee ka soo deji waayay airportkii magaalada Muqdisho lixda hore shan ka dhigeen waxaa baloo wareejiyay Hirshabelle in jaadkii iska soo dago maamulka Hirshabelle qaadkiina Johoroba ka soo dagooyaa hooyadii waxay tiri jaad mi imaahayo haddii kale annaga iyo ganacsatada qaadka waa inaan isku fahanaa canshuuraha habartii waa diidi jaad ina soo dago cunugiya waxaa siri habartay ma diidi inta ka soo daji maxaa lagu sheegaa marka qodobka labaad madaxweynaha kubadda cagta Afrika ayaa waxa uu Muqdisho imaaday madaxweynaha Turkiga madaxweynaha Djibouti en madaxweynaha maxaa la dhahaa siga Mareykanka madaxweynaha waxa madaxweynaha Xamarweyne madaxweynaha xamar imaadi madaxweynaha Jubbaland madaxweynaha Puntland madaxweynaha Hirshabelle madaxweynaha Galmudug madaxweynaha Koonfur Bari maqli jirteen tan waa ka duwan tahay madaxweynaha kubadda cagta ee Afrika Axmed Allah lama Axmed asbaxsaday
axmed bin axmed ayaa muqdisho imaaday garoomadii kubadda dowladda soomaaliya ay gacanta ku haysay si uu indheeyo si uu uu indheeyo balse markii uu tagay ama uu booqday istaadiyo muqdisho iridaba amisoomay u xiran tahay juni waxaa yaalaa container laga soo cabiri container halka juni iyo containers dhan yahay cara waa la moodi shubaa ku jira shub ayadoo ay la socdeen wasiirka gaashaandhigga ayagoo ay la socdeen wasiirada gaashaandhigga amniga iyo isboortiga xataa saxaafadda ku geey go back aa la yidhi gadaal u noqda go back amisom waxay iska soo jartay gadaal aloo naqdo meeqa wasiiraa socota fiiribe wasiirka gaashaandhigga wasiirka amniga kan isboortiga saxaafadii gadaal u baxay tiri amisom axmed iska dhaafay tiri guuleed makaseen anaga qodobka saddexaad xukuumadda soomaaliya isbuucan dayniile ayay ka shidan yihiin dayniilayba ka shidan yihiin bay isbuucan dhan kulanka amniga dayniila lagu qabanooyaa wixii wada tashi ah dayniila lagu qabanooyaa waxaanba umaleehaabe dayniile kaneeca inay joogin beledkan kale kaneeca ku badatay ya dhilmaanya cunug walba cisbitaalle loo wadaa maxaa haya dhilmaanya hayso cunug walba cisbitaalle loo wadaa maxaa haya duuma hayso xamarweyne iska imaadeen xamarweyne kaneeca male xamarweyne badle ku taalaa badma dhilmaanya keentaa ya calaa kuli xaal isbuucan dayniila shidan naftirkey waxay haysaa dayniile ina iskaga guuro barkee dowladdii dhan xaggay u dhamaa hoosaa dayniile maxaan ku leeyahay haddii oo la dhaho saacidaad daynila lala geehoya meelaha kale dadka abaarta ma ka baxayan ma ogihi isbuucan daynila shidneed calaa kuli xaal daynila waa shidan tahay dowladda daynila ayay ka shidneed isbuucan qodobka afaraad iyaga sheekadii kalamaan oo aad iyo aad xiise u leh caawana diyaar waaye ilaahow iskumaa naga yeel ilaahow khaluubteena isku soo du ilaahow laabteena burcad isku mari rabbiyow abtiyow eesimo waa nahay ummadda nabi maxamed aa nahay yaa rabbi ilaahow khaluubteena burcad isku soo mari mar labaad aan idin akriyo qodobadii warkaa ugu door karoonaa is-affahan waa fiiriyaas isu dheeryahay is-affahan waa iyo isfahan laa xawla walaa quwata ilaahayba isku mid maka dhiginba is-affahan waa dhex martay wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada khaadka soo dejiya waxay wasaaradda joojisay ganacsigii khaadka ganacsatadiina eriborka muqdisho inay u gooyeen tunerab laga bixiibe ayay waxay ka soo dejinooyaan hirshabeelle qaadkii xaggow ka soo degooyaa habartii waxay tiri jaad gurigeyga mala keeni karo haddii sidaan heshiiska u rabno ousan u dhicin habartiyaa tiri mininkeyga jaad maliga keeni karo cunugiioo lama guri ku dhagan le deganaa yidhi habartee saas may tiri haa inti ka soo dejiya hirshabeelle cusubla waxaa siri inta laga soo dejiyo weli anaa wax badan iga dhimaa ya inta laga soo dejiyo habartaas iyo igaarkaas ma isla socdaan ma iswaafaqsan yihiin ma isla jaan qaadi karaan habar iyo cunug yaa weyn waryaa ani adiga waryaa yaa weyn 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 habar iyo cunugeed yaa weyn warkaasi waxaa inoo haaya waryaheena abukar jajumo
xogta faaliyaha qaranka waxay faahfaahinaysaa fariin gaar idinka sidaa ganacsatada qaadka Soomaali ka ganacsato iyo wasaaradda maaliyadda ayaa dhawaanadan isku dhaceen dhanka canshuuraha ismarawaa oo ka dhaxdhacay dadka ganacsatada jaadka ka ganacsadayo wasaaradda maaliyadda kadib markaasi waxay mamnuucday wasaaradda maaliyadda inuu jaadkii ka soo daga Muqdisho saasi yeeshee maadaama ay bixin waayeen canshuurta siday u rabeen wasaaradda maaliyadda oo xaq ahayd markii laga waayay ganacsatadii qaadkii laga joojiyay wax dhibaato sidaasi kuma badhicin ganacsatadii qaadka iibinaysay balse waxa ka faa'iideystay maamulka Hirshabeelle ayuu wuxuu ugu soo dagayaa qaadkii oo sidii nadiif ah laakiin barbaraale ku ziyaadiyay ay luqluq badan soo maray balse waxa jirtay dhawaanadan inay la shirtay dawladda federaalka Soomaaliya oo horkacay madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane محمد عبد الله فرماجو مدحوينينا قرنكا ayaa wuxuu la shiray maamul goboleedyadoo dhan ayagoo isla mar ahaantaasi isku afgarteen inay naqato hooyada dalka dawladda federaalka ayagana ay hoos imaadaan balse waxa la yaabanay maamulka Hirshabeelle ma hilmaami shirkii daraad oo la galay mudane ama madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane محمد عبد الله فرماجة waxaan u maleeyaa maamulka Hirshabeelle waa hilmaami mise wuxuu u maleeyay inaysan ku jirin qaadka iyo waxyaabaha la mid ah sidee amal u siseeway hooyadii qaranka maano warkeed in la yeelaa la sugay laakiin maamulka Hirshabeelle wuxuu yiri wixii soo diideen baataa dadka jaadka aan la iimaad aan igu soo daga barbareega banaanka laga dhigaa siri marka ma laga baxay balintii horisay ahaan waa kasi la'nahay ilaa haddana qaadkii laga mamnuucay Muqdisho wuxuu ka soo dagayaa maamulka Hirshabeelle Abuukar Jaajumow faaliyaha qaranka Universal TV beerta jaadka yeegayaal qodobka labaad madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa wadanka madaxweynaha Sansan madaxweynaha xamarweyne madaxweynaha Abu Xuseenka madaxweynaha Geelaq madaxweynaha Afardoodka madaxweynaha ومدحوينه مقلي جرتين ودنك إنه بوقش كو إماده مدحوينها كوبدا عكتا أفريكا أحمد أيا بوقش وحكو يمد مقالة مقدشو أسيغو إندي مالي إسبورتيغا الدولة دا أي قعنتكو هاي سي كدب وحو صعدال لير كوتاقي استاديو مقدشو أو إهد قرونكي كوبدا عكتا برساماتكي asiga waxa la socday kaligiis sameeyeen Ahmed wasiirka gaashaandhigga la socday amniga isboortiga la socday saxaafada la socotay markay tageen istaadiyo Muqdisho albaabkeeda waxay ku arkeen Ahmed wuxuu filahay fiyooro in meesha uu yaalo garoon qurux badan oo fidsan maxaan ku leeyahay cooskiisa laba shabaq qurux badan meelo badan oo cadeysan waxaa ka soo horbaxeen niman madmadow oo gaagaawan oo la dhahayo Amisom iyo jawaanadoodii oo saaxiibadoodii ay aaminsanayeen jawaan iyo caro waxba ma xafido jawaan iyo caro waxba ma celiso ilaahay wuxuu xafido ayaa xafidsan subhana qadir asa wajalla wuxuu xafido ayaa xafidsan Ahmed madaxweynaha kubadda cagta ee Afrika Ahmed iyo wasiiradii la socday sida wasiirka gaashaandhigga amniga isboortiga iyo saxaafadda waxa la yiri go back ay ma aha af Soomaali hadin ku macneeyo kastiyaro in Mareykanka joogi la soo bartay iga dhaaf marabe wadankeyga meel iga roon male nin walbo wadanka wax ku dhaama male wayna waaxido wadankeena no sameey nin walbo wadanka wax ku dhaama male nin walbo wadanka wax ku dhaama male idinka caadiin hadii joogseenino oo banaxeenin ani hadii waa istaagay waxyaabaha amal waxa la yiri kulligiina gadaal u naqda meehanay isbartii waa ahaajirta laakiin hadda ma inta ami Soomaale gadaal u naqda mana qawata ma istaahilna in أساس نولو أمال سو جستي والله يكون أنا تفنيه سابع نمذا وركان وحا إنو سو دياريي أو إنو أخرينايا ووريهنا محمد ولي حاج أحمد أو كوما قعدور أو كوما قعدير جون أبا جونكا
John Abba Johnka. John Abba Johnka. Abba Johnka soo dhawow. waa tahay waxaa la yaab iyo fajac noqotay waxaa inoo yimid madaxweynaha kubadda cagta ee Afrika Soomaaliya ebel waxaa la dhihi jiray waxaa yimid madaxweynaha Turkiga waxaa yimid madaxweynaha Kenya madaxweynaha Imaaraadka marba saas ahayd qaab siyaasad ayay ahayd hadda waxaan maraynaa anaga madaxweynaha kubadda cagta ee Afrika ayaa noo yimid oo Soomaaliya ka soo degtay markii uu soo degtayna si fiican ayaa loo soo dhaweeyey isla markiina wasiirka isboortiga iyo dhalinyarada wasiirka amniga iyo wasiiro kale si fiican ayaa loo soo dhaweeyey oo maxaa la yidhahdaa airboortka markuu ka soo degay haddana isla markii waxaa la geeyey qaar ka mida garoomada ciyaaraha oo waa qasab ninkan wuxuu madaxweyne ka yahay ciyaarta kubadda cagta in la tuso marka garoomadeeni waxaa dhacday garoomada qaar markii la geeyey garoonkii noogu weynay markii la geeyey in garoonkii loo diidaba madaxweynihii iyo wafdigii wasiiradii la socda dhan oo la yiribo maba idinka warhaynaba barnaamijkaa u socoteen iyo waxaa u socoteen iyo maba oginba waxaa u socoteen oo runtii aad iyo aad meesha niyad jab weyn oo ka soo qaaday madaxweynihii maadaama meesha ay tahay garoon ciyaaro garoonkina waxaa deganay amisooma dhinac ka deganeed maba naloo sheegina yirin inaa wax imaanay iyo wax baxay iyo waxaan ka ognahay ma jirto waxay noqotay arrintaas arrin aad looga niyad jabo oo maadaama horumar iyo aan gaarnay waxaa la rabay waxyaabahaas oo kale inaysan nagu dhicin oo aan kasii gudubno oo la tuso meeshii oo la arko maxaa la arkaa meeshii waxay noqotay meel ciidan degan yahay ciidankina way diideen in la gala ama meesha la tuso madaxweynihii arrin aad loogu niyad jabo ayay noqotay adduunkana way horumareen waxay gaareen heer maxaa la yidhahdaa meel kasta la gaaro annagana waxaan noqonnay inaan hoos u dhacno sababtoo ah waxaan heli weyne in la tuso madaxweynihii kubadda cagta in la tuso garoonkii ciyaaraha oo amisom waaba diidayba amar maba qabnay dhaheen mana ogin warna kama haynay dhaheen arrintaas waxay noqotay arrin runtii niyad jab leh marka waxaan rajaynaynaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan horumar gaarno inaan ka guulo inaan waxyaabahaas iyo wax lamid ah aan ka gudubno aan ilaahay ka rajaynaynaa insha allah haddii allah awooda la saamaxo maxamed weli xaaji axmed universal t v faaliyaha qaranka muqdisho yeegayaal qodobka saddexaad xukuumadda soomaaliya isbuucan waxay ka shidan tahay degmada daynile degmada daynile ayay ka shidan tahay kulanka amniga daynila lagu qabtay wixii wada tashi ah daynila lagu qabanooyaa wixii caawinaad ah daynila lagu shubooyaa ama loo wadaa maasha allah daynile waxaan umaleehaa qawow waay kuleel maaha umaleehaa qawow geeda waaweyn ay leedahay oo la harsado oo qawow badan inta kale xamar kuleela kacsan kuleel ilaahu daynil camal naga dhig si ay dowladda mar walba anakana noogu imaada ilaan hal meel ku qulqulooyaanba isbuucan dhan daynilay ka shidan tahay ugu shidan tahay ra-iisul wasaare khayre daynilaas ba ku haystaabe maxaa jira xamarweyne alimaada qawow way badlan qabnaa unaka laakiin unaka xamarweyne geed maku yaala mayno qawow waa la rabaa daynilan soddonkoo geed ka soo xadeenaa cawanima siyeed sac ayaa daynila tagi karahay xamarweynaan ku dhadhaji laheen khayre iyo dowladda dhan xaggay nooga imaan lahayeen unakana meelo badanaa abaar ka jirto waddanka dhan abaar waaye meel walboo abaar jirto waa in la gaarsiiyaa caawinaada ilaahay wuxuu yidhi irxamuu man fi lardi yarxamuka man fi الsamaa'i ilaahay subxaana qaadir casa wajalla aan u dhowaano
aan u soo noqono aan u toobadkeenno isbuucan daynila waa shidnay naftirkey waxay haysaa ma u guurtaabe ilaan dowladdii dhan daynilay ay iska xaadariyoosaa caasimadda maa daynila laga dhigi rabaa ma ogihi 17 degmaa ku taalaa xamar wixii halkaas meel loo doorti waa kolley waa waxay dowladda ku jeclaatay allahu yaclam warasuulahu ayagaa og daynila waa shidan tahay wallaahi boos xataa ma laga helaayo umaleeyaa boos haddii dhihi lahay nuskoo boos meesha aliga qabta boos xataa ma laga helaayo allah u ziyaadiyo heer daynile allah u ziyaadiyo warkaana waxaa inoo hayaa wariyaheena hee isbuucan waxyaabihii aan u kuurgalnay waxaa ka mid ahaay waxaa soo baxday waddan kasta waxaas leeyahay meel oo aad iyo aad bilixdeeda iyo quruxdeeda oo saa'id waxayna ku suubsadaan waxyaabaha muhiimka maxasaha shirarka caalamiga magaciisii safiirada caalamka iskugu imaada iyadoo meeshaas laga duulaa inay tahay caasimad ama magaciisa waddankaas meesha ugu qurux badan oo dad lagu soo dhaweyn karo haddaba ahaatee Soomaaliya naftirkeed oo hadda aan joogno oo nigala hadlooyo waxaa ka dhacday madaxtooyada waa kaseesii meesha ay ku taalo madaxtooye lamaad meel u ekaatiyaa jirtaas meeshaasna meel kale ma aha waxa waaye daynile ayaantan iyo toddobaadkan dhanba wixii shir la qabanayo waxaa lagu qabanayay daynile shirarka caalamiga haddii laga hadlayo abaaraha haddii laga hadlayo maxas ahaaye amniga kulli waxaa lagu hadlayay degmada daynile ra'iisul wasaaraha mudane cali kheyre iyo madaxda magaciisa maamul goboleedyada kulligood waxay shirkooda ay ku qabsanayeen daynile waxaa maseeriyaa la yidhi degmooyin badanaa maseereen waxay dhaheen ununkana maxaa shirna uu la qabo waaya arrintan waxaa lagu sababeeyey oo degmooyinka kale ay maseereen dhaheen madaxda qaranka annaka waa rabnaa inay magaciisii shirar ku qabsadaan meelaha aan magaciisii aan nahay oo ugu aalno khariirada Soomaaliya laakiinse aan naftirkeegaaba u sheegaya degmooyinka maseeri in daynile ay tahay degmo ortoko kaneecatii la dhahaayey nafturukh waayaan ku dhahay maba lagu arkaayo geedaha ka baxayaaba mar waxaad camal kaneecana meel qawow ma tagto waxaa haddana daynile ay ku sii wadataa ay ugu sidataa degmooyinka kale waa jabigeeda degan kaale aragaan ku dhahay dadka dhiigkarka iyo sokorta qabi aalta barasooni lee loogu talagalaba meeshaas inaa la geesi buuqa iyo barbaleenka ay ugu nastaan ra'iisul wasaaraha maadaama shaqadiisa ay badan tahay buuqana isku badan yahay naftirkiisa waxaa siiri shirarka xagga hala geeyo dad isfiilita qabaa dadka ku dhex jira madaxda haddii la xanaaqayo meel jawi degana uroona meeshaas hala geeyo daynile waa ogtiin shacab oo aad u tiro badanaa degan aabbaha markiis mininkiisa imaanayo ilmihiisas u imaana usoo gacanta yaftacuulku wadin mininka ma imaado ra'iisul wasaaraha maadaama degmadaas astagaaye dadka jooga waxay isdhahayn mas-uuliyiin waaweynaa nii soo socdaane magoo gacanku qabsi la'aan ma soconayse iyagoo wax nii wadaan leha imaadaan weji furna waxaas ugu dhigi dhowr baabuur oo raashin saaran laakiin meesha laga soo baxay ilaa daynile inta loo soconayo meeqa degmaa ku dhex jirto meeqa shacabaa degan meeqa dad baahanaa ku sugan meeshaas awo ishooda waxaan ku dhaha iyagoo fiirihooyin las magaciisi raashinkii la geeyey daynile hase ahaatee waxaan isleeyahay naftirkee ra'iisul wasaaraha dadkaas ma ka tegi lahayn waa u degi lahay madaxiisa bataati waa ka jilcayaa calooshiisana toorto wax waa sii lahay laakiin waxaa laga yaabaa in usugna ammaankiisa iyo waxaas aska fikire calaa intixaal si kastaba ahaatee isku duubduub raashinkii meesha markii la geeyey dad badanaa jalboodeen oo waxay dhaheen annakana madaxtooye hanagala dhigo kuwan kalena madaxtooye in laga dhigay rabaan oo kabacdina kasta yar oo weji furka oo dhaqdhaqale la rabaa bis wax kaleba ma la rabo runna waayo waxaa la yidhi bini aadin
magaciisi dhuun la xiriiriyas leeyahay dibna la xiriiriyas leeyahay cirib la xiriiri male aa la yidhi mago isbuucan daynile waa nafaqaysatay aan ku dhahay madaxda qaranka dhanaa ku caruurta oo shirar ku qabsatay isbuucanna waxay ka shidneed daynile isbuucan degmooyin badan ha isdiyaariyaan siina nadiifiyaan waa loo soo socdaa shiraraa lagu qabahaa luqmatu subaxna waa loo keenaa laakiin hadda sheekada waxa waaye halkay ka shidan tahay daynile halkay ka shidan tahay daynile xaggay ka shidan tahay daynile oo universal t v faaliyaha qaranka iyaagayaal haddana waxaan idin soo gudbinaa daawadayaal caweysin wanaagsan ayaan idin leenahay meel walbood joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijkeennii kaftanka isboortiska oo sabti walba hadahan oo kale aad ka daawataan tv-ga caalamiga ah universal barnaamijkana waxaa idiin qaada dhigaya anigoo cabduqaadir boos ah ka bogasho wacan FIFA ayaa il gooni ah ku eegaysa muuqaal ay duubtay kaamirada qarsoon ee ku xiran masraxa kooxda xukuumadda markii ay ishu qabatay diyashaha baarlamaanka Mustaf Dhuxulow oo ku sugan tababarka caadiga ah ee kooxda xukuumadda laacibkan ehel wadaagta la ah kabtan Xasan Cali Khayre ayaa bayaan ka soo baxay FIFA lagu qeexay in isboortiska iyo qaraabadu yihiin wax kala nooca sidoo kale kabtan Khayre ayaa mutaysan kara ganaax 3 kulan ah haddii ay dhawowdo in soo magacaabistiisa shakhsiga ah uu kala kaashado xidigaas la qaab ciyaareedka Faarax Cabduqaadir gobolka Taabid Cabdi oo hore ugu jira qaab ciyaareed wanaagsan ayaa haatan kasbanaya kalsoonida taageerayaasha 40 jirkan xidid dhow la soo noqday macallinkii hore ee qaranka Xasan Sheekh ayaa waqti badan siinaya social media si uu la tartamo qarankan wada aaminsan Facebook iyo Twitter wiilka reer Elder ayaa cadaadis kaga imaanaya kooxda lagu naanayso Blues ee Xamardaya FC kuwaas oo aaminsan in magacaabista Taabid tahay offside win oo gool loo sarrifay maadaama iyagu yihiin aas-aasayaasha kooxdan canshuurteeda lagu quudiyo kooxaha kale ee ka dhisan dalka xidiga kooxda BBC da Catoosh ayaa markan sii jiminaya dhammaan iskoorada u yaala kooxda wariyaasha xidigan diyaaradda xitaa dhexdeeda live ka soo gala ayaa xirtay dharka aan xabadaha karin wadada Maka al-Mukarrama oo ah goob nabada xidigan ayaa doonaya inuu iska dhigdhigo wariyaal caalami ah oo ku sugan jiida hore ee Muusil in dad wada labisan oo mushaaxaya lagu wareesto dharka aan xabadaha karin ayay xilleerayaashu u arkaan wax laga filan karay xidigan oo mararka qaar newska BBC da ka sii akhriya page-kiisa Facebook kooxda qoto ayaa iska ciirisay xidigta Laki Xaaji Wacays taasoo bedelkeeda lacag rikoor ah ku soo xirgashteen xidigta leh taageerayaasha ugu badan ee Faadimiina bogga kooxda ku leedahay Twitter-ka ayaa la soo dhigay sawir agaasimaha kooxdaasi Abuukar Mahdi iyo Faadimiina oo isgarab fadhiya Bishaara Xaaji Wacays oo mar dambe la baxday Laki Xaaji Wacays ayaa haatan bilaash looga heli karaa suuqyada Yurub FIFA ayaa dib u daawanaysa muuqaal laga duubay BK oo hadalla ka baxsan isboortiska ku duraya daayarkii hore ee kooxdaasi haatanna u safta qaranka Soomaaliya Nimcaan Hilaac ay soodanin muudalan wax ku dhigmo kale ay soodanin muudalan wax ku dhigmo kale dhulka waxa ku bulan nool in horta adoon dhalan sidoo kale 19 jirka lagu bedelay Nimcaan Hilaac Berof ayaa isna lagu helay dambi la mid ah kaas isagoo kelmado ka baxsan anshaxa ku duray laacibada baxsadka ah ee Yurub Genyo waxa taraysa yara dadka odorasa ciyaaraha ayaa aaminsan in maskaxda kubadahaasi ay ka soo burqadeen lejanka lagu naaneyso Sidani El Labsalac kaasoo kooxda inteeda kale ilaa uu siinaya xidigii ka hayaamay kooxda Universal TV ayaad wali inaga daawanaysaan markana xubinteennii wargeysyada iyo waxa ay qoreen maanta
kooxda Hiiraan Sports Club ayaa ku doodeysa in lawyer buuxa ay ka qabsan doonaan nambarka 39aad ee kabtan Xasan Cali Qare u dhiibay mid ka mid ah xidigahooda Hiiraan Sports cadadkii maanta. xidigta Farxiye Fiska ayaa mar kale isku dayday wicitaanka kabtan Cali Dheere si ay ugu sharaxdo fursadda maanta ay haystaan kooxdooda laakiin xidigan ayaa ku xujiyay laacibadan inay dhameystirto aayadda Al-Baqara haddii ay isku koox yihiin. xidiga Fiilan Guuleed Simba ayaa fursad weyn siiyay laacibada King Jaamac Yare si ay uga garab ciyaarto. wiilkan 2 milyan views haysta ayaa isku arka mid kor u qaadi kara cid walba oo ku jirta qaab ciyaareed liita xagaagan. xiriirka kubadda cagta Afrika ee marka magacooda la soo gaabiyay loo yaqaan Sakafa ayaa iska diiday dalab macallin Farmaajo ee ku aadanaa in kulamada martida iyo mininkaba looga dhigo Arbaco. kabtan Musafani oo qoslaya ayaa isna codsaday in la siiyo maalinta Isniinta. African News cadadkii maanta. ugu dambeynna murankii timajara reer Helsinki ay fanaanka Axmed Saki ayaa la xaliyay markii Raaslu maqaska ka daftay food macmal ah oo muddo laga shaqeynayay. Promoter Nuruddin Ais ayaa ugu dambeyn ballan qaaday tikitka Turkiga. daayirta reer Fiilan Rehan Cabdiraxmaan ayaa ku guuleysatay tartanka hablaha Hollywoodka Fiilan xilli hablihii laga guuleystay ay weli ku doodayaan in xidigtaasi ay isticmaashay tabalcaaro. kusoo dhawaada sheekadii kalamaan oo ay noo jilaan qaar ka tirsan fanaaniinta ama wariyaasha faaliyaha qaranka ilaa fool ku taala. حالتك ورا اهلا وسهلا. ايه يورنا توديل موسى ساعدان اديب نفترك حاجه وديل منيسا واب ديل منيسا من الصبح حتى بسم الله ما كديل مي جيف مجرى لي يري حداعي ايوا وقتها حاجه وسعتها وزارده اسبدل كيمد شقه وسعدا الله وركليغي املينا ادنا يقول جرتا dadka dhan suuqa la soo shaqo taga bahal waxa la keenay suulka la saaray dhag haye 10 saac hadana laga baxa dhag suulka la saaray صح واي ها وفي عنتاي هذا صارن مشار مهليس انما شقيسن شهوه كحارن ما يا و سائد واحد waxa bahasha waxa noqotay alasay hal soo galo hal ord waa ujeeda meesha hadana waa waqtigii hadana cariiri iska waay waa bahasha culays ilaa 10 saac jooga ilaa 6 saac la jooga jiray ما horta in la shaqeysto way fiican tahay hadana 2 saac marka soo gasho 12 saac ka baxdo والله wax cusri ma leh xaqaaga la shaqeysanaysaa koodhe laakiin haddana waxa fiican ma taqaanaa waxa inay lahaadaan hataa xoogaa ma mushaarkii waa jiraa horta waa iska okay hartaa markay dib kala ma leh haye waxa kala iska jir waa loo baahan yahay adiga maya ilaa 6 saac amal ku fiicneed maya in la shaqeysto way fiican tahay haye hala shaqeysto واجبكنا ساسا لو قلت ورمي وساردا دنبو انا كلمه كلينا هدان اهن بلاي لو قبو بلو ما لها سارد كست مجيدا ساسي horta hoosh uga socota qaarna waa jiraan oo wili meelahoodi iyo saaradoodi iyo diyaar ahayn ha dhimo loo ku sii shaqeynayaan intaas waa gaari doonaan say noqotabo marka hooshya waxa la yiri musuqmaasuq dhana la yiri meesha ku yimaad hal tirtiro cadaalad hal shaqeys nin kasta shaqaale shaqadiisa shaqeystaa liira saasa fiican yahay shaqeysatid adiga oo si sax u shaqeysatid ma sha Allah ina xaqaaga hesho waajib waay ayaga looga baahan waajibkaas inay bixiyaan ma hela sida inta badan hadda u badan tahay hadda wixii waa la helayo labadan bilood buu helnay sax haddana waa la helaa insha Allah laakiin dadka waxa iska qaar iska goos waa jiraano oo shaqada imaahim ayaga la xisaabtama markaas xisaaba imaanayso xisaabtanayo qofkii oo goos ka badadso iyada la arki doona adi maxaa ka qabsay adi shaqadaada ka soo baxa صح وي محمود حاج جون اي وريا فاهمين هي سبحان سوق هذين شقه كلها سوق هذين انت وسعدان انا شقه وسعنا انا شقه ورطه وسعدان دي واجر لكن شقه ان بس لين maxay tahay
بس فرتها وقتيgeeda hal gaar aad sabad way hadaan noqnimo maalinka mood lama qaadayna fiirin hal mid ay ilatahay haye waxay ilatahay bahasha intii horta ku meeshan waxa way madax kasto imaa horta ujeeday wadataa ujeedada laakiin waxaan ka baqaa ani bahash inay naqato nin kasta intii jaakadiis ay nuureysna soo warmaa haddii jaakada kasto busbus aska dareemo dhoofo la bilaa antaasan ka cabsi ama taas dhacdaa war hadda baasha si soo toosan ku socotaa tahay waxaa la yiri qofka hadooba shaqeysto wuxuu shaqeystay xaqiisi waa hela adiga wixii lagaaga baayay xaq iyo xaq darba la isku hay meeshaan waxa dhacaysa bar taleefana bilaaba bilaaba markii duulo bilaabtare waxa way joodireyn leena tabaadhow mama duulooga naftirkiisa wax la ku imaan doono horta midaa jirta madaxda horta maanta ma loo sacbiya hadda si fiican haddii loo sacbiyo loo buraan buro horta ko madaxda horta ilay horta khatar tahay waxaan ka soo jidka horta furmi jidka suuxdii wala suuxadi meel ka soo la maro laakiin hadhow la amaala duula aan shakiyan ma ala la duulo galo haddii la duulo galo hadhow joodin la aan lagu dhacaysa talaaq yaa la duulin hala sheego duulo ma jiro aniga xoogaa la socaa meesheedu waa dheer tahay hore u sii soco ay ana ay daaynine hore u soconeen anigu ha soo baxo saakin waa balansareer waxaan xildhibaan ma gambadow ii waran bal aawa saaka barnaamijkaa isku ogeyne mooshinka waa jiran tahay haye anaa ku soo aaya heeleyu keena waa jiran sug bal haye xildhibaankiian wacaa ii kaadi bal haye xildhibaan damdamle ii waran hee aawa saaka waa lagu sugaaye mooshinka maxaa waa jiran tahay haye xildhibaan maquuraan wacaa ii kaada isna waa nala soo galaya de wacalaykum asalaam xildhibaan maquure waa fiicana alxamdulilaahi haye saaka waa nila sugaayey see waay maxaa dhacayna mooshinka laftirkiisa sintiriyaa kugu kacde ma soo bixi kartid marka waa nala soo galay de boosaasaa laga yimid meelna laga imaaday kaala sheeg waa nala dhex jooga dadkan cimaamadaha dhaadheer leh riyaalka wato si aan yeelo ma aqaan wallaahi boosaas waa laga soo gudba hadda dhexdeena la jooga argadi wax soo socdo meeshay gaartaa ka gelaynaa sugbal xildhibaanka kalena aan gale وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لما أنا والمسؤول أنت موشيكي الله ما أنت ما هنا بنتي حاوريرتا ما دمت الله ونعريست هيا والله درهم وشقينه يا ماشان درهم كر وكيم بتكر والله أدين كيدين تالا ماشي كقشان كجلا مع أي كلام الله أكبر الله أكبر وحال يا بناي كالي بوساسان كوغاي بربران كوغاي غورمين لو سو غله عمام ديرا عمام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وربا محمد ورب خير الحمد لله ليه هل سؤال أنكو ويديو أيانتا واكوي دتك السفري أو إمارات ما كو جرتي ديوري كورني ديوري كساني ديوري حق نغني ما كميد هي دارتي والمحلك ولمت والله إذا هم باشلني هيه دورده هيه عصيرك هيه عبتانك هيه وصلك هيه وريق دلهيسك هيه الحمد لله وصباش عشان إذا هم باشلني الحمد لله هيه محام مركب ماشي محاك صباح ماشي أنت لنا عنه لا معنا سياسة ها هدا فهمت لنا على سياسة محاك صباح ماشي لنا على سياسة ده محاك صباح واه هنا محاواي لك الدري لك الدري لما أمانة الله لنا على سياسة معك صباح محاول جيدا مرك هذا حالتي كورم موشن كين أنا أبوس أنا هيه ماشي أنا لقي هيه قيل أنا لو قله هيه عبيتان نوع والبابا هيه هيلب كينا صدقني هيه وراقانا لو كان هيه وحي الآخر كلا لسكاخري وحي لشيك كلا لشيكي هيه الحمد لله أساسك سوق الفاتح سنة صارت لك لما تي وارد ما يسنى الحمد لله أرمي كلنا مارتي ميك هذا لين
برنامج ما هو أسلمت كيسة هيه إيه ما هي تدنا إيه ما هي مع الله ما يكوي داي موشن ميل ميك ما هذه هاجديس تي موشك مشيسو أو برمانكا واحد ما يصير تاس ميل كلام بس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والله فيري لعقتي جيلك أنا ما أنت واحد لا السعودي لعقتي جيلك اللي كي ساعة أنت يصير واحد يصير موشك بجرنا بسم الله الرحمن الرحيم موشك بجرنا ولا بس لا أنا وين روسيا كان روسيا ما حماه ما كنا ما يستعتم هذا مع الودمي يا باي بسم الله الرحمن الرحيم أنت لك التوري أو ماشي صنع عبيتانك سأوشك كيسر سنة وبعضي بحاول أنت لابد إيه وريا أص ما يدارو دريدا دبال دلو أنا ما كسايو كان عبر كدراسي أذن أنا عبد الله أدير كيسه فيري كم مرة أمريكنا أروس أنا صدرا أنا دلي مركو حواي أدير كيسه صراحي أدير كيس ما كده بلعت لك ده فيري إيه ما كساي بس كان والله برنامج كان أساسه نقول ما هذا ما هذه هذه بوه وريا إيه قال كان بس إمارات بورصة ولا نجيب أنت هذن بس دي إمارات شركة ما حدا ما ينايسن هذا ما يني شيء بس ما يكذا ما هذه شركة إيه هذا بوه وريا وريا هذا أروس مارتا نوف أروس كان إيه yeegayaal qodobka shanaad waa wargeysyada iyo waxay qoraan oo alaaba waxaa laga wadaa alaaba markii la furo namarka shaata soo bixiyay haddana inta haddii loo soo gadiyo oo namarka shaata la furo alaaba waay alaaba macneed namarka shaata le waay bilaay ma aha caay ma aha ceeb ma aha oo meehaanin oo aqriyo abwaan makii xaaji banaadir ee boogay baaba xaaji bacda dhuuqso makii soo galaa ku iri makii ankaa yaawan ku iri makii ankaa naxo ما سند عبد المريد دير أجكس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الكسر وهذا برنامج كوركيس هذا وحلي ذا وكالات وقبرتين تي في عالم يونيفرسال استوديو مقالة مقدشو داودي البرنامج كوركيس هذا وحنكسو قادنينا ما أنت وركيس لما قاعد بحي داب يامبو وركيس داب يامبو بقيسا ما أنت وحو كده فري الحمد لله رب العالمين روبكي جوجا أيا ميلو بدن أو كميد جيجا سوماليا كهوري أو دت يدونيو يدوجبا أي كودا ديرسدين سيدا درتد بيرليدا سوماليات ميلو البوي جوجان واحد يرجرو وجيران إن أي سلحان له وتبعدان للكودا هويو وغنا فائدستان xilligan guga waxaan beeralayda Soomaaliyeed ku guwaawinaynaa ayuu yiri qoraha maqaalka Dabyambo in ay marka hore Allah ka baryaan in uu fasalka guga u toosiyo u hagaajiyo iyagana waxaan ku guwaawinaynaa una sheegaynaa beeralayda Soomaaliyeed walaalayaalow dhulkan maruu hadli doono maruu markhaati furi doono ayaa la gaari doonaa siduu Allah subxaanahu wa tacaala noo sheegay marka waxaan idinku codsanaynaa in aad ku beertaan wixii bannaan in lagu beero oo aadan ku beerina waxaan banaaneen qoraal maqaalka wuxuu yiri idin uunsi iyo akhyaarba siday wax u arkaan wax uma sheegaan laakiin waxyaabo dadkeena dhibaaya diinteena dhibaaya dalkeena dhibaaya dhulkan yaan lagu beerin ha lagu beero wax diinteenna dadkeenna iyo dalkeennaba nicfi u ah kor waayeel waa wada indho ayuu yidhi qoraha maqaalka Dabyambo meesha aan farta ku gudayno kole waan isla fahmaynaa ayuu yidhi dhulkan yaan lagu beerin waxyaabo uu xaq u lahayn in lagu beero waxyaabo uu geyin
in lagu beero dhulkan yaa lagu beerin yaan lagu beerin waxaan loo baahnayn in lagu beero yaan lagu beerin ha lagu beero wixii loo baahan yahay in lagu beero dhulkan allahna siiyey biyaha allahna siiyey nimcooyinka allahna siiyey inuu noo badiyo noo barakeeyo noo bulaaliyana isagaan ka sugaynaa ayuu yidhi qoraha maqaalka daabyaambo wuxuu ku soo celiyey haddana dhulkan yaan lagu beerin waxyaabo aan banaaneen in lagu beero dhulkan yaan lagu beerin waxyaabo uusan mudneen in lagu beero dhulkan yaan lagu beerin waxyaabo aan loo baahnayn in lagu beero dhulkan yaan lagu beerin waxyaabo uusan geyin in lagu beero dhulkan ha lagu beero waxa loo baahan yahay in lagu beero allah subxaanahu wa tacaala ha loo talo saarto fasalka guga inuu rabbi noo toosiyo rabbi noo barakeeyo calaashaan dhowr fasal soomaalida kumay guulaysan hadday daadad qaadaan haddii ay dabeelo ku dhuftaan iyo haddii abuurkii uu cudurku dhaco sidaas bay iska ahayeen waxyaabaha soo go-ay ma ahayn waxyaabo indhaha si buuxa ay u qabanayaan laakiin iminka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa fasalka guga inuu ilaahay noo toosiyo inuu ilaahay noogu dhigo mid na kaafiya inuu naga bato dhoofino ilaahay noo barakeeyo walaalayaal caloosha aan isku furno dhulkan inagaa leh si uu mudan yahay in loo tabcado aan u tabcano si uu mudan yahay in loo beerto aan u beerano si uu mudan yahay in looga faa'iidaysto aan oogu faa'iidaysano dadkana aan ooga faa'iidayno ilaahay nimcooyinka uuna siiyey lamaba tiri karo lamaba xisaabi karo lamaba koobi karo annaga maxaa lanooga baahan yahay alxamdu lilah ilaahu adaana siiyey ilaahu noo barakeey ilaahu noo badi ilaahu noo bulaale inaan iran laakiin aan taas beddelkeeda samaynin dhulka wuxuusan mudneen inaan ku beerno walaalayaal wixii dhacay waa dhaceen allahna wada cafiyo dhammaanteenna laakiin dhulkan wuxuusan mudneen yaan lagu beerin allah ha looga baqo ayuu ku soo gebagabeeyey qoraha maqaalka daabyaambo boggiisa maanta iminkana waxaan gelaynaa boggii ah wax ka baro suugaanta iyo mahmahooyinka soomaaliyeed duruufaha waxbaa lagu bartaa qofka dareenkiisa si dahfuran inuu uga waramo wuxuu danaynayo ha loo daayo waa mudan yahay dib u heshiisiinta ku dabaqa kitaabka iyo sunnada dawada waa taase wax ka duwan haddaad qaadataan daqarka iyo boogta iyo xanuunadii la daaweyn lahaa bay ka daraayaane soomaalay dagaal lama rabee nabadda doon doona tolkeygow dagaal lama rabee nabadda doon doona dadkeygow colaad lama rabee nabadda doon doona iscafiya dadkiiyo dalkan u tura diriirtan soo yaalka qaabkii looga daawoobilaa fura dariiqeeda waxaan nahay dadaan kala dhacayn duul walaala ahoo diin iyo caqiidiyo hidaba ku kala duuneyne dulqaad iyo inaad muujisaan debicsanaan waarta isku daya allah deeqbaxshe dejiya laabtiina haleesdilo dowmaahee midyaha ku celsha daabkooda dib u fura dariiqyadii nabadda gogoshi daaweynta dulqaad baa adduun lagu dhaqaa nabadda waa daabo dad iskaashi buu walax ku yahay nabadda waa daabo isku duubni baa lagu hodmaa nabadda waa daabo tanaasulka daw baa lagu furtaa nabadda waa daabo
danqashada xalkay qayb ka tahay nabadda waa daabo dagaal iyo colaad joogta baa laga ducaystaaye dalka yaga allow noo xasili daa'im baa tahaye dadka yaga iswaafaji allow daa'im baa tahaye magaalada inoo deji allow daa'im baa tahaye tuulooyinka inoo deji allow daa'im baa tahaye xaafadaha inoo deji allow daa'im baa tahaye degmooyinka allow noo xasili daa'im baa tahaye dabka shidan allow naga bakti daa'im baa tahaye colaadaha allow naga dulqaad daa'im baa tahaye dagaalada allow naga korqaad daa'im baa tahaye abaaraha allow naga dulqaad daa'im baa tahaye darxumada allow naga korqaad daa'im baa tahaye cudurada allow naga dulqaad daa'im baa tahaye mandar khayr allow noogu deeq daa'im baa tahaye nabad caam allow noogu deeq daa'im baa tahaye dembi dhaaf allow noo hibey daa'im baa tahaye dalabkeena noo fuli allow daa'im baa tahaye saan doonayna noo yeel allow daa'im baa tahaye ducadeenna eebow ajiib daa'im baa tahaye aamiin iminkana waxaa la soo gaaray qaybtii ugu dambeysay iyo saddexdii maamaha waxaan ka bilaabaynaa tiro aan kow lahayn koboc male aan ku celiyo tiro aan kow lahayn koboc male qofkii warkuu keeno waraas kaa qaadaa kun dhumay kunaa lagu karfinaa intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada iyo maanta dhinaca farsamada iyo kaamarada waxaa gacan iga siiyey guuleed cabdisalaad khaarey iyo axmed cali bare xafaara wargeyska waxaa soo diyaariyay isoo mariya halka ka soo jeedinaya anigo amaka xaaji banaadir buurfolo banaadir baaba xaaji bacda dhuuqso anagoo isku duuban waxaan idinku dhaafaynaa nabadin nool kulanta ammaan allah iyo kulanti dambe oo xiise leh soomaaliyey toosoo isku tiirsadaye hadba kiina taag darane taageera weligiine faraj alla noo furaye soomaali waa faraxde furihii nolosheena helne farmaajo waa falxade dharadhandhan soomaaliye toosoo isku tiirsadaye hadba kiina taag darane taageera weligiine khalqigaad khaluubtoo degtee khaalingee lagu khalaad u khallantaa qaadirkeega kheema ku sii khayra waa kugu qaadanaye soomaaliyey toosoo isku tiirsadaye hadba kiina taag darane taageera weligiine tubta toosan iyo toofiiqda tawaab weena nagu toosiyaye taabid manaas talla noo qabtaye soomaali waa tagtaye soomaaliyey toosoo isku tiirsadaye hadba kiina taag darane taageera weligiine soomaaliya ha noolato soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha midowdo soomaaliya ilaahow abaarahan ka saar ilaahow abaarahan naga bixi ilaahow abaarahan aaran ugu badal yaa rabbi abtiyo eesimow ummadda nabi maxamed yaa rabbi aan nahay ilaahow dhexdayna biyo qaboob laabteena burcad ilaahow khaluubteena isku soo du aamiin ilaahow abaarahan naga bixi yaa rabbi roob yaa rabbi roob yaa rabbi roob yaa rabbi roob ilaahayow roob noo keen rabbiyow raxmaanow roob noo keen rabbi yaasir wala tucaasir cawnaka yaa rabbi yaa ilaah maskiinka alo axmad waaqoonasi ilaahow roob noo keen yaa rabbi daawadayaal iyo eegayaal waktiyadan oo kalena waxaa idin salaamayay dhammaan wariyaasha faaliyaha qaranka oo isku hee toosan waa ugu horeyn abwaan maki xaaji banaadir
ayaa idin salaamaya abwaan maxamed weli xaaji axmed john abba johnkana waa idin salaamaa abukar jaajumo waa idin salaamayo abbaha ayaa idin salaamayo ilaahu afkeyga baan ka haay cabduqaadir booska ayaa idin salaamayo cabdi qani triple a ayaa idin salaamaya aamina macu cabdulle ayaa idin salaamaysa khaamu raamsan jawiil waturaab habi fowq alhabi faarax cali wehliye ayaa idin salaamaya waxaa idin salaamaya axmed xafaara a idin salaamaya axmed maxamed cali xafaara waxaa kaloo idin salaamayo duubaha deeyaha diyaariyaha maxaan ku leeyahay barnaamijka faaliyaha qaranka waa hee inanka sanadka inanka da'da yar dajiyaha duubaha deeyaha diyaaryaha waa guuleed cabdisalaad hee waa khaareey iyo anigoo ah wadani anigoo ah wadani fiirso oo ka faa'iidayso faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare faaliyaha qaranka fikraduhu soo bandhigayo waa midaan wax fogeynin waa midaan wax ficlayn waa falaaqayntii fahankeena farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare fariiso oo fiirso faahfaahinada faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare abwaano aad u fac weyn iyo jilaayaal firfircoon fikir ay isku dareen fiid kastoo sabti ah universal ka fiirso faaliyaha qaranka fikirkaaga waa u muhiim faaliyaha qaranka